magacay waa Saciid Carshe oo ka socda hay'adda CARE waxaan rabaa inaan la wadaago barnaamijkan Voice ID-ga oo aanu kala shaqeynayno goli sida uu ku yimi iyo waxyaalihii kalifay inaanu ku fikirno waxa la socotaan waxaan sameeynaa hay'adu sameeyaan cash distribution markii ay jiraan xaaladaha emergency-ga oo dadka waxa la gaarsiiyaa lacag cash-kii marka aanu wadnay marka la bixinayo wuxuu u baahan yahay dadka in la diiwaan geliyo lacagtii hadhowdii loogu sii daayo kaararkoodii ka bacdina in laga helo saxiix qofka in laga helo si loo cadeeyo qofkaas inuu lacagtii helay taasa marka runtii waxay noqotay challenge nagu noqotay waxay noqotay dad aan u sii dayno tiro badan lacag u sii dayno mararka qaarkood 5,000 oo qof 3,000 oo qof lacag loo sii daayo haddana qof kasta waxa looga baahday in la helo saxiix taas marka waxay noqotay caqabad waxay noqotay costing waxay noqotay time consuming oo waqti badan bay qaadanaysaa waxay noqotay in la safraho dadkii la raadiyo oo gawaari la isticmaalo waqti badan la qaato dadkii qaarkood waxay joogaan baadiyo bay joogaan heli waayo mararka qaarkood qofkii saxda uusan ku saarin waxaan marka si waxaas looga tago fikirkan baan keenay Voice ID ma isticmaali karnaa golis u tagnay ka bacdina golis barnaamijkan aan ka wada shaqeyn wana qofka voice-kiisa codkiisi baan diiwaan gelinaynaa qofkii markaan codkiisi la record garayo marka la diiwaan gelinayo qofkii codkiisi baa la haynaya database-ka lagu hayo hadhowdii lacagtii waxaan sameynaynaa waa sii daynay lacagtii markii loo sii daayo qofku marka horeeto kelmadda la duubay oo la record gareeyay waa inuu xasuusto oo haysto kelmadda taana waxay ku timi wacyigelin dadka in lagu wacyigeliyo oo qofkii wixii la soo qofkii hadhowdii markii lacagtii la sii daayo uma baahni inaan u tago dokumentiyada iyo warqadihii iyo wixii saxiix iyo dadkii raadiyo waana war lacagtii aan soo dirnay bal cadeynteedii iyo accountability-geedii keen automatic wuxuu sameynayaa isagoo markuu qofku codkii yiraahdo lacagtii waa loo sii daynaa beed bay lacagtii markaa noqonaysaa lacagtii markay beed tahay oo lacagtii qofkii u dhacdo linki bay sameeyeen goli samaysay annaga CARE ahaan waxaanu kala soconay halkaas aan kala soconay saacad kasta dadka lacagta qaadana reportkii hadhowdu muxuu noqonayaa isagoo automatic report hadhowdu naloo soo generate garayna waa saasuu marka ku shaqeynayay Voice ID-ga sidii uu ku yimi initially fikirkan sidii ku yimi tijaabooyin baa la sameeyay waan tijaabinay marka hore wuxuu ahaa dad yar baan ku bilownay haddana waa tijaabinay ilaa markii dambeeto very successful noqday 100% waana barnaamijka hadda aan isticmaalno ka CARE ahaan aanu isticmaalno marka halkan waxa ka muuqda waa markii hore challenges-kii hore naga haystay oo hadda aan sharaxay oo maaragtay aan hadda sheegayay oo dadkii iyo sidii loo heli lahaa saxiixoodii iyo buu soo koobaya slide-iskaano runtii Soomaali ahaan baan ku soo koobay Voice ID-ga marka waxyaalahaas oo dhan noo sax cost-kii buu yaray time-kii buu yaray dadkii lacagtii isla waqti baa loo sii deynayaa report-ka anagu waa haysan accountability qofkii codkiisi hadduu cod kale ama maaragtay qof kale oo la bixi kara waa secure dadkii aanu qornay inay lacagta helaan waa hubnaa kulli marka saasay waxay ku tahay ay saxiix ku noqotay isaga ruuxiisu marka challenges wuu lahaa some challenge way nooga yimaad challenges waxa ka mid ahaa dadka qaar baan hadalka shigshigo oo kaleeto ama hadalka aan karin oo kaleeto ma ay suuragal ma noqonayso dadkaas inay lagu sameeyo la record gareeyo exceptionals bano dadka waayeelka qofka waayeelka sometimes markii la diiwaan gelinayo codkaagi baa la duubayaa lacagta ugu dhacay inay ka dhaadhacsiis baad iyadana waxay noqotay very hectic iyaguna marka dadka deeda runtii caqabad bay helo exceptionals iyagana waa gaar baan uga reebnay waxyaalihii maartay oo keenay bay kamid ahayd processka umra daaya la sharaxay ku celin maayo waa 4 step ka weeye enrollment-iga marka codka la duubayo marka dambana waa verification qofku uu dhahayo si sax kelmadii markii horeeto ka bacdi lacagta in la sii daayo qofkii loo sii daayo ka bacdi inaan report-ka helno marka intaas bay system-keedu noqonaya
challenges waa kuwa waxyaalaha marka lesson learned aan u baahanahay oo aan ka baranay maxaa kamid ah iyaga waxa kamid ah as organization han ama hay'adahan in marka aan u diyaar garowno la qabsiga artificial intelligence inay muhiim tahay oo hadda adduunka maartay meelaha loo socdo in lagana faa'iideysto inay muhiim tahay in dadkii ruuxiisi in loo sheego la xoojiyo wacyigelin la sameeyo dadkii loo sheego waqti ruuxeed in la geliyo dadkii qabanayay oo dadka gacanta ku qabanayo oo tiimamkii golis iyo hay'adii care iyaguna inay yihiin dad wixii fahansan oo iyaguna ay meeyta waxa kale oo muhiim ah feedback dadka oo waa muhiim koos dadku waxa weeye iyaga isticmaalay marka hore dad feedback ay dadku keenayaan iyaduna waxay ahayd muhiim sidoo kale dadku waxa weeye iyaguna reliable source of support iyaga taageeri kara oo barnaamijkii dadka isku fahan ma aha dadka dhalinyarada marka fahmaa inay u gudbiyaan kuwii kale oo kaala shaqeeyaan oo dadkii say lacagtu ula baxayaan waxyaalahaas oo dhan baa iyada marka fikirkan runtii waa very successful saasuu ku shaqeeyay haddana maaragtay aanu ku shaqeynaa والله صاحبك الله واستعمال دونان thank you aad baan u mahadsantiin wallahi ma salaamtiin